qodobka koowaad ee ninka dhalinyarada ah haddaanu haynin ama inanta dhalinyarada hadaan haynin shaqo waa in ay marka ugu horeysa ka hawlgashaa sidii ay u heli lahayd shaqo ay nafteeda ama qofkaasi uu naftiisa ku maareeyo oo uu ka baxaa qofku idilada ah wadanka shaqo ma taalo waxa ma yaalaan shaqo kasta oo aad qaban kareysid waa in aad u tafaxaydataa oo aad muxuu haye aad u diyaar garowday inaad qabatid wax alla waxay doontaa waa wixii ay lacag ka soo gali karto naftada ku maareyn karto waa inaad muxuu haye qabataa qodobka labaad marka shaqada heshid ha iska fariisanin meel oo ku qancin $200 ama $300 lagu siiyo oo waxa laga yaabaa in 24 saacadood markay ugu badan tahay 8 saacadood shaqaysid 8 saac waxa ku soo haray 14 saac oo 16 saacadood oo kale 16 saacadood oo kale waxaad sameyn kartaa inaad second job shaqo labaad inaad raadsatid si income kaagu uu u sii bato